sida diintuna farayso afar hablood ama afar gabdhood ma guursanay aniga Ah. horta niyahow ilaahay subxaana watacaala asimana uumanno ya maxaa qoslaysaa muddo ah ayaa muqdisho kugu dambeysay goormeed leedahay muqdisho ku laabatid sharmaake meeqa shaqo ayaa kasoo shaqaysay maasha allah niyahow horta assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu am back adaa idin salaamaya saaxiibada qaaliga ah walaalaha qaaliga ah meel walba aad joogtaan waxaynu kala maqnayn muddo ku siman hadda 2 bilood ee ku dhawaad haddaysan ka badnaynba wax yar ayaa nooga dhiman 200 kunna adaa idin salaamayna isku soo noqosho wanaagsan waxaan rajeynayaa inaan sidan iyo si kasii badan iyo muuqaalo kasii badanba insha allah aan idiin soo gudbin doono waxaan maanta wada fadhinaa oo aan wada joognaa sharmaake cabdinaasir walaalkay sharma boy ay sharmaake soo dhowo maasha allah waan ku dhowaa walaalkay macaan diraac horta dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaana u rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheeri waxaa waaye meel walba ay joogaan dhiiggaana mideeyay soomaalinimo iyo islaamnimo intaba waan ku salaamayaa dhammaantooda waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba aad joogtiin maasha allah hadda saaxiib waana dhowahay waa ikadhaa sharma niga nin weyn aad iyo aad idin salaaminaa islaan kadib sharmaake waxaa weydiin doonaa su-aalahaas aad ayay u koobnaan doonaan insha allah oo su-aalo kooban ayay noqon doonaan su-aasha ugu horeysa ee aan weydiin doonaa sharmaake waxay tahay sharmaake in muddo ah ayaa muqdisho kugu dambeysay goormeed leedahay muqdisho ku laabatid horta muuqbilan dhammaan ciyaal muqdisho aad baan u salaamayaa waxaa idin leeyahay shakalaaza kafaza rakaza maaza waaye xaaladda waanu ku faraxsanahay in wax la iga weydiiyo reer muqdisho mar walbana waxaan jeclahay in ayaga le wax la iga weydiiyo waxaan leeyahay reer muqdisho aad baan u jeclahay ciyaal muqdisho waan jeclahay haddaan garowa joogana muqdisho anuu jooga le lamid tahay ma fahante horta maanta alxamdulilah australia ma joogo ama maraykanka ama canada ama lima dhahayo mataqaanaa gorbaa wadankii ku laabanaysaa horta wadanka waa joogaa waanu ku faraxsanahay meel ka midana wadankii baa joogaa abni badantii garow aan jooga aan ku suganahay tii garow ninkii garanaya mid cuqdad iyo ciil oga baxay maahane ninka imaadaa kama tago magaaladu dadku way ku dhegtaa ilaan waa bartuu nasabka degaya marka waxaan leeyahay reer muqdishona waan jeclahay every time waan jeclahay maantana wax kaleeto iga meesha waa meeshan kusoo koray waa meesha walaalay ay kusoo barbaareen waa meesha waalidkayga hooyadii macaan adduunka ugu jeclahay ifka ee deganeed waa meesha indhaha ku kala furay waa meesha farta sida loo qoro ku bartay sida wax loo aqriyana meeshaan ku bartay ummadana meesha ay ugu barteen mar walbana abaalkaas waa u hayaa reer muqdisho hataa xajka taga xataa waa usoo duceynaa dhammaantooda iyo soomaali weynbo marka muqdisho insha allah ama barnaamij show aan u tagayaa ama barnaamij kale aan u tagayaa ya ama xiise qaaday iyo aan u tagayaa horta muqdisho waan tagayaa anoona cidna magan kaga ahayn oo ciyaal muqdisho ah baan tagayaa haa reer muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad aad baa idiin salaamayaa waan idinku soo wajahannahay insha allah hadduu alle yidhaahdo cadowgana waa cagta hoostiisa waa kacsaadee su-aashaas meeshaas ugu baxay والله ما شاء الله شمالك وحيري حجك هذا حتى تجو غير مقشة أو سود عينيا هذا ما صنت هاي سؤال اللي بعد هذا أيام قل دونا شمالك ما يغش غاية كسر شغيس ما شاء الله أنا هرتا أنا وشقوي أنت شقة كسر شغيس مركا إلى هذي نحن نقول إن حساب كلا وشقوي فربضنا كسر شغيس لكن أو ده شغال أنت اسمه كربا متقنا وحباك عكسه qabsoo maayo ama alyomkaaga xataa ka hele waa qabsan jiray horta ani waana ka shaqaysan jiray shaqada aan u qalmaa markaas oo nin rag ka shaqaystaa nin shaqooyinku waa iska fara badan yihiin laakiin shaqooyin inta waa gala aan dhayan ka shaqeeyaa ku daahay xoogaa aan iskaga dhex jiray oo niyo waa iska birtaas un ma fahante birtaasaa mar aan xoogaa ku dhex jiray boosaasoo mataqaanaa ka shaqaynayay lama dhigi karo dee ninkaan birow si fiican u bartay iyo hadda xoogaa gaariga waan ka aqaanaa laakiin toosna uma wada aqaano laakiin shaqada kuma raagin horta boosaaso waan joogayo boosaaso waa aan joogi jiray kuma joogin nin reer puntland oo nin landheero ka dhacdo daas marag kumaana joogin aniga shaqaa ku jooga saaxiib ma garatay
istaqaano way istaqaanaa nin walbo waa ninkii shaqaystaa absolute dadkaaguna waxay ku rabi karaan Shaqaas rabi. weligaa ehelkaaga Yeah. waxay ku rabi karaan ama kugu faani karaan markaa tahay nin qabsada, wax qabsada oo oo wax shaqaysto laakiin haddaad in meelna aada ka muuqan Aad waxaa waaye qof ku hadal qaadaysa xataa ma jirto absolute horta boosaas waa kasoo shaqeeyey absolute shaqada aan kasoo shaqeeyeyna waxay ahayd kuwa aniga aan doortay mid la ii doora ma ahayn dan oo zaa'id ah iyo gaajo bala ahmida igu ridana ma ahaano oo maanta nin rag iyo rabbiba leh baan ahaa si fiican laakiin waxaan jeclaa inaan shaqaysto si fiican oo aan soo dhacsado waxaan xogaa haa mar walba aan shaqaystana waxaa qofka aan jeclaa inaan tusiyo waxa aan sameynayo oo ilaahu maa istus u sameeyo ilaahu maan mataqaan waxay doon u sameeyo laakiin qofka aan jeclaa inuu igu farxo aad tusiyo hooyaday ahayd oo aan dhaho waa shaqaysanaya maanta markaas ayadana waa dhiirigeliyahayga marka niyow birtaas geerish waan kasoo shaqeeyey han noqoto baawurrey caadi waan noqday labaajo waan kasoo shaqeeyey labaajooyinkan waaweynka ah afgooye ayadana toorna waan ka shaqeeyey iyo alxan toornada ma baran been waa daawanaya ma ogtahay asxaabta isla shaqeynayna odayga beenuu gamaa lagu camirnaa laakiin meesha toorno iyo alxan ay ahayd toornadii anoo u gudbin barnaamijyadaas bagaarinba alxankii khatartii aan mataqaanaa khatar kusii noqonin ayadana shaqadaas ayadana dhowr bilood aan ka shaqeynayay oo xoogaha ahayd afgooye maasha allah asxaab fiican oo aan la shaqeynayay famil oo yemani ahaan la shaqeynayay haa abba xasan iyo meeshaan ka salaamaya qaasin intaa ka salaamaya raggii aan la soo shaqeeyo oo dhan intaa ka wada salaamaya aad iyo aad raggii aan la soo shaqeeyo kulli ma laisku soo koobi karee nin horta shaqo nin rog uu qabto waan soo qabtay oo aan cadkeyga ku dhacsanayo aan raadsanayo ma fahante marka waa la tilmaamaa haddii la dhaho meesha faara laisku soo qabanaya niyo shaqooyin oo laakiin nin raga uu qabtay waxay doontaba ha ahaatee aad iyo aad marka waana ku faraxsanaa intaasoo shaqa inaan anoo soo qabta haddana maanta inaan sharma ka ahay waana rajeynayaa dee mataqaanaa aad iyo aad inkastoo boqolkiiba boqol laakiin waagaas ay ficneed waagaas waxaa waaye almiitaa qaadanaysaa waa mataqaanaa waxay rabtaa samaynaysaa waa soconaysaa waa dhididaysaa ma ahayd hadda ma fahante laakiin haddeertaan waxaa qam waaye abti gurigaaga iskaga jiray ma fahante marka dadka caanka ah allah u gargaaro dadka oo caanka ah ilaahay ayaa idin gargaaro asxaabe annaga is oge dadka habeenka socda ree aakhiraad camal ilaahay ha idin gargaaro aad iyo aad maasha allah shaqa sharmaadka wuxuu sheegay shaqa nin raga uu kasoo shaqeeyo uusan soo marin male taasna halkaas ayaan uga gudbaynaa sharmaadku goormaa ku gudbaysa afid saxad horta yaa fiid aan seexdo niyo beenkuma sheegaa in muddo ah 2 sano hadeertaan oo aan barnaamijkan aan soo galay fiid aan seexdo goor igu dambeys ma aqaan markaan is dhaho 2 sano barnaamijkan ku jiro markaan is dhaho saaxiib fiidaa seexata sharma caawo waa yalka xaafadda caadi ku soo noqotay waxaan seexdaa 7 saac 8 saac 9 saac habeenimo oo wallaahi saar shaqadan u bilaababa marka shaqadaana waxay iska tahay shaqo farniyaho ma garatay ayaduna inta badan habeenkii la qabtaaba shaqo fan oo dhanaaba waxay tahay xamaasad ku leedahay habeenkii in la qabto inta badan xitaa hadaad habeenkaas shaqo qabanaynin wax sameys iyo waxba aan isku mashquulaya runtii dadku inay la yaabaan laga yaabo laakiin marka aniga aan ogaaday barnaamijkan in aan ku fiicnahay oo aan mataqaanaa ku habboonahay dhankan fanka ah culeys fara badan aan saaray ninka xaaladaha soo aragtay oo kaaga soo maraan ka mid ah oo soo maray baan ahay oo kaaga sheekeynayo marka xaaladan marka aan ku fiicnaa mid walbana ma dhamaysan jirin shaqo walbaba dhaxba uga tiri jiraa because marka horena waa kali jiray haddana markaan sii dhex galo haddee ii fiicnaa waa isaga bixi jiro laakiin shaqo inta qabtay aan ku dheeraaday oo ilaa haddana aan ku dhex jiro fankaas baa ka mid ah ma garatay marka niyahow goor afisi xataa 2 sano kor ku dib 2 sano muddo 2 sano ah 2 saac iyo 3 saac iyo 4 saac ma seexan laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa hurdadeeda inaan soo cishtaa oo ku xumaa ii soo noqo please ii soo noqo hurdadeeda insha Allah waxaan rajeynayaa inay ii soo noqoto waxaa soo dhanna tiim sharma uu sabab ah laakiin insha Allah nasiina dheer
عندي لهدي waan qaadan doonaa hadday عندي geeri لهدي noqoto iyo hadday caadi noqotaba عندي hadduu alle idmo insha allah إن شاء الله شرماكو سيدا دينتو نفريسو أفر هبلات أما أفر قبلت ما قرسين هاي aniga آه. horta niyahow ilaahay subxaana watacaala إيه. asimana uumanno ya maxaa qoslaysaa ilaahay asaana untay سفيان jini iisan wuxuu u untay إني عبد adduunka u keenay inay caabudaan صح dee diinteenna waxay sheegaysaa waddadu ilaahayna fare iyo rasuulkeena haddaa ka leexatid ya hadda qof muslimaana mogta diinta muslimka ku dhisan tahay سفيان marka horta markii laga taga kaftan guurka afarta ahna waxbuu ku yimaadaa guurka halka qofna waxbuu ku yimaadaa guurka halka qof aa ku ekaanayso wuxuu ku imaanayaa hal qof farxad ku siiye hal qof oo afar ku noqda keligii hal qof oo ku diiday inaa wax kalaba aad tabtid hal qof oo asiga inaa eegta maahane indhahaagu ay qof kale eegayna hal qof oo wax walbo aa u baahneed maanta ya farxaddaba ha ugu weynaatee ku siinayo markaa haysatid waa asbaabta keenta in aad hal xaas yeelataa asbaabta kaloo kee asbaabo badan way jiraan xataa ilkaha kadaa ku socotid ashiitaa xataa dee naag maxay kugu falayaan afar naag marka xaqiiqada markii laga hadlo anuu nin dhalinyaro ahay maanta 22 jir ah marka wixii dhici doono horta aniga macnaha kuma dhayo dad way jiraan oo mawduuc oo mataqaanaa shakhsi ahaan wax samaysto wixiiba ayagoo aan galin go'aan ka qaato ina afar guursanaa afar raaga guursanaa ani hal lee ku ekaanaada taas dooq ma ahan aniga shakhsiyadeyda wax isbedeli doono allahu aclam ma ogi ma garate marka ma degdegayo waxaa waaye waxaan leeyahay afar xaasilayaashana waa soo dhaweynayaa hal xaasilayaashana waa soo dhaweynayaa anigana insha allah dee wixii ii qoran hadduu ilaahay afar ii qorana afartan guursanayaa hadduu hal ii qorana hashaas aan ku ekaanayaa aad iyo aad intaasaa kaga baxday intaasaa kaga baxay shirbakow haddii soomaaliya madaxweyne lagaaga dhigi lahaa maxaa samayn lahayd nin horta soomaaliya soomaaliya lagaa dhigo madaxweyne haddii soomaaliya aan laga dhigi lahaa horta dadka marka ugu horeyso dhaqan celisaa wada geyn lahaa dadka dhan maca wadaadadii wadaad macnaha ma jira ma dhahaayo afkii iyo qaloocan wadaado way jiraan laakiin social media nin soo batay baryahan waxa iska soo baxay ciyalka xaafadii oo dhan laba bariyo kuna sana oo sigaarkii qaadka iska deena qolo isku soo xiraa oo soo huura ma fahamtay bas mataqaanaa waxaa waaye kutaabaa lagu soo kala furanaa waxaa lagu leeyahay mataqaanaa qasab maa mogta qur-aanka haddaa camo ka gaarte inaa dadkoo dhan ninka ugu cilmi sarreeya aa iska dhigtid muhiim ma ahan marka wadaadadana waaweyn waa aragtay ma degdegaan afaaraha ma soo galaan ma ku dheeraadaan mataqaanaa barnaamijka noocan ah ma galaan wadaadadii marka hadda waxay iska noqdeen mara ku dheg mataqaanaa marka waxaan leeyahay wadaadada Soomaaliyeed yaana meel looga dhicin dadka wadaadada iska dhigaayo ya oo wadaadadana ahaan aniga magac ma soo qaaday kulli ana agteeda wadaadka ma ahan dadka isku dhaxyaacay suufiyaasha oo aqaana dadka isku dhaxyaacay ee suufiyaasha abaliis social media naga daaya barnaamijka aad la soo galeysaan iyo buuqa waxaa waaye horta madaxweynaha hadii laga dhigi lahaa maca wadaad shaqir kabiir iyo caruur kurti dhaqan cilna wada geyn lahaa ya maxamed siyaad bar camal idab markaa u yeelo horta inta ugu wanaagsanaa oo ugu fikradda aad aan dhihi lahay adigo qabiil lama ahaya aroon give a fuck qabiil waxba igama galin laakiin inta aan isleeyahay raggaan mataqaanaa waxbay kula wadi karaan ya baan dhihi lahay Soomaali marka qori iyo habad iyo wax ma ku fahansiiyaan ana horaa inuu kugu sheegay dadkan ma fahmayaan 10 jeerna ugu soo celiyay Soomaali qoriga u sheeka nacab yihiin haddii la tumo Soomaali waxa way toosayaan
marka adiga 4 bilood aan u qaban lahaa oo dhaqan celin oo dhaqan celin ahaa shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad midaada kale wadanka qudaar laga dhoofin karo ma jirtaan dhihi lahaa iyo xoolo laga dhoofin karo ma jiraan dhihi lahaa waxaan kaloo sameyn lahaa waxaan dhihi lahaa annaga hawadeena mataqaanaa iyo badeena iyo everything waxaa waaye ciidanka ugu adag horta maxaan u sameyn lahaa meelaha mataqaanaa dalka dhaqaalaha ahaan iyo intaba ay kasoo galayaan inkastoo nin wax bartayna aan ahayn haddana waxaan isku dayi lahaa wadanka xeeladii xaniyaba inaan ku wado waana xanaaq dhowaan iska xanaaq fududahay kulay labadii mataqaanaa hadii laba iyo waxba iska soo tataagay moogtahay haddaan qoorta ka siibo dadku ima qabanayaan ilaan fanaan kaliya ma sharm boyna waa ay moogtahay nigo dadka fanaan madaxweyne kaliya ma fanaan oo ahay marka halkii labadii igu buuqdo qoorsiibi lahaa meesha ku qoorsiibayna ma tuseenbo ma fahantay boqolkiiba 70 dakhliga wadanka soo galo wadanka galin lahaa 30 ani familkeyga cuna lahaan inta ka hadla ma qoslay xariiqdo dadka hadda ay madaxdeenan hadda boqolkiiba 90 iyo 9 ayaga cuno ana waxaan ku dhahay boqolkiiba 70 dadka galin lahaa 30 ani familkeyga cuna lahaan beenku ma sheegay ilaahay oo laga baqa hadii laga baqa loo hadlo waxa waay ani familkeyga hooyaday aabahay walaalahay iyo dooyinkeyga inta famil ahaan dhan adeeg waa wada qaadi lahaa Mareykan iyo waxaan geelnaa Canada iyo Australia familkeyga dhan macnaha habrarahay carwarahooda war wixii oo Sweden iyo meelaha si jooga xataa Europe taas kale oo ka qaadi lahaa gaajo ay ogtahay America meelahaas aan geel lahaa mideeda kale waxaan kaloo sameyn lahaa niyow diraaco adiga laftirkaaga waa ku kala kicin lahaa saaxiib ma fahanti maadaama saaxiibkeyga aad tahay nabdiga waa gacan waa ku kala kicin lahaa Mareykanka ku geyn lahaa nadaaribta afar xaasta sheegaysa ku guurin lahaa niyo waxa soo dhan markii laga soo tago wixii soo haro oo dheeri noqdo oo meelaha naga soo galgalana anaa isku cayilin lahaa ujeedaan waxa ardeeda ujeedaan caata ah أنا واحد بدن أباهن مركا ودن كان واحد أقبل لها نفتي ذن واحد أقبل لها أدي أد مركا أساسا وما أفوين يعني أفكر جدين على إسلامية وحاول أنت أفكار أنت سيعنا يا ولي جسوا جارابو أدي أد مركا أفرتي سنة دمستو ووحي العقد ودن كيالنا عن دمستو وأسكوه بيو إنه وحي دمادان سشرف له قروح بدن أحلك ورجل لها أنا ولي بدتك وحيصي إباهنين أيوة إيش إباهن بدتك يا رب